horta dagaalkani ka socda bariga dhexe ee qisa ka bilaabmay saddex arrimood horena waan uga hadalay xaggan han dhigno number 1 dagaalkani wuxuu sameeyaa mustaqbalka dunida dunida oo dhan ولذلك waxaa la diraaseeyay العالم ما بعد غزة الدوق سوق كان دونا غزة كدب قضية استراتيجية وين ولا دراسة وين أرنت اللبعض مهم كأوح وين maxaan ku idhaahdaa marka aad ruush iyo maraykan adeegtid ruush iyo shiina dagaalka ay ku jiraan ruushku iyo maraykanku waa dagaal sifri ah shiinaha imika Putin wuxuu yiri hadduu igu dhaco madfac lagu soo sameeyay wadanada reer galbeedka ah sida imika Israa'iil garaacdo kale hadduu igu soo dhaco nuclear baan tuuraya waa sifri dagaalku zero laskuma qoslayo ايش قدام بيجي تاعي جاينوهنا wuxuu rabaa inuu maraykanku dhooqadan sii joogo dagaalkuna sii dheeraado oo dhiiqa lagu hadla karo oo isaga laga mashquulo isaguna ujeedadiisii u gaadho waa arinta labaad arin saddexaad oo muhiim ah jirta arin saddexaad oo muhiim wax weeyaan jaynuhu wuxuu wadaa awoodaha bariga dhexe joogo dhan inuu cilaaqaad la samaysto uu noqdo ka bedilaya maraykanka Britole hadduu maraykanku naxiifo marka wuxuu ka shaqeynayaa isagoo jaynuhu taabu ka shaqeynayaa waxaa la leeyahay ruushku wuxuu ku dhooqadii waxaa dishay Afghanistan Soomaaliya maraykankana waxaa laga yaabaa dhooqada Israa'iil inay disho ambase ay naxiifiso ambase macna kale hadaa siino ambase aragtida dunidu ay ka leedahay maraykanka iyaduna aata noqoto oo la yiraahdo ma awoodii aan isku haleyn karin la isku haleyn karayo waxaas oo dhan Chinaha iyo Ruushku way ka shaqeynayaan marka gargaar fara badan oo huba ayuu Ruushku siiyay wadanka Iran gargaar fara badan bay siisay Ruushka diyaaradaha bila pilotka ee dagaalama droomka waxa aad uga iibisay Iran Chinaha oo Ruushka wuxuu ka iibiyay hub waaweyn markii 2 bilood ka hor bilya bar ka hor waxaa laga sheekeynayaa inay diyaaradaha hawadu ay kala go'i waayeen muddo usbuuca hub sideen waxay keenayeen Tehran marka taas waxaa kaloo jirta hub kala dhahdo dhulka ard oo 2,000 oo kilomitir sameeya iyo Pakistan oo keentay Iran oo qaadi kara nuclear kuma jirto laakiin waa hubkii waa keentay waxaa la dhahdaa ard dhul yaa la dhahdaa dhulku ka baxa dhulku ku qaraaca ma aadna uma sarakaco sanbuusaan u kaca waa 2,000 oo kilomitir buu gaadhaa marka Iran hadii la soo tuuro Israa'iil u gaadhaya Falastiin ku dhacaya marka taasina Pakistan baa ka iibsay marka Pakistanna ilaaqo hoosa bay jeenaal leedahay oo dhaqaalaha oo fiican ilaaqo istiraatiijiga waa leedahay Shiinaha marka waxaas oo dhan baa yaa jira oo ah maaragtay mandiqada ka shaqeynaya waxaa loo yaqaanaa الرمال المتحركة على هذا عرض الدقائق marka saxaraga marka socod maartay ciida gurgurta hada marka rimaalki waa mutaxarig isma taagin marka bariga dhexe waxaan ku sheegay dagaalka ka dhacay wuxuu sameeyaa mustaqbalka adduunka dadku soo markayaan dadka dhulka iska nool dad baa iska nool kale waxaan bariga dhexe waxa ka jira may adigoo aka jooga bay dunidu isbedelaysaa waxaana bedelay boosaladu waagii bariga dhexe weligeed bariga dhexe waxay boosalada taariikhda bedeshay يوريد به تاريخيا صعب ماشي عم بيدو كسو بحجرين عم بيدو محي يماد تاريخ يبدله بقى ماشي ما تاريخ اللي بدل جري ماشي تاريخ اللي مامور يجري باي تاريخ دي سقطها ماشي يوم القيامه وكدعينا وهلكا الملاحم الكبرى meelaha ay ka dhacayaan taariikhdu ay ku gabagabaysana halkaas weeyaan ولذلك بروتستانت كره loo yaqaan gaar ahaan ku usuuliyiinta xagjirayaashu oo ilaa 7 milyan ingiriiska iyo mareykanka 7 milyan oo qof weeyna waxay akhriyaan kitaabyo ay isku diyaarinayaan dagaalada Harmagedon badada wuxuu ka dhici doonaa Falastiin kaaba isku diyaariyaan anaguna maxaan ka sheekeynaa hadaan nahay ahlu sunno
waxaan ka sheekaynaa inuu nabi ciise soo dhici doono oo meesha ay ka dhici doonto dagaalkii iyo dajaal iyo meelaha la isku haleelaya waa halkii oo halkaan ka sheekaynaa idan waa mixwar taariikhda bini aadanka bad'an wa intihaan bilowgeygii ilaa dhammaadkeygii ma meeshan bay maaragtay ku duulaysaa nolosha dhan gartay sheekh aad baan u fahmay waxyaabo badan baad ka sheekaysay sida ciiddaas guurguuraysa qaabaynta dagaalkaana Gaza inuu dunida dib u qaabayn doono oo dunia cusub ay bilaaban doonto dagaalka kadib iyo aragtiyo cusub iyo awoodo cusub dabcan مثلا dadka muslimiinta ah ama maxay hayto shiico iyo sunni iyo waxyaabaha saa u kala duwan oo dhan markaad fiiriso hadday isu tagaan ayagu awood laakiin waxaa muuqata Mareykanku inuu ka faa'iideystay kala hayntooda iyo isku dirkooda kuwa mar qaraacaya kuwa kala farxayo intay ku celebration ku jiraan oo faraxsan yihiin ayaa haddana wax isbedelayaan kuwii baa la heshiinaya kuwaan u soo jeesanaya isku bixinaya farxooda dhexdooda kuwii haddana qaraacaya labadoodaas marka inuu balance ku haya tii madaxa kor u soo qaadaba buris celis inuu ku sameeyo ayaga dhexdooda marka fiirisan hadda Pakistan oo kale hubaysiinaysa Iran waxay la xisaabtamaysaa dawladahan kale ee Ruushka iyo waxyaabaha noocaas ah anaga ama dadka muslimiinta ana waxa hoggaan u ah wadaadada hadda laakiin u soo noqoto wadaadadeena Soomaalida iyo wacyigooda marka fiiriso dabcan wacyiga sheekha Soomaaliga maalinka adoo siyaasad daraadeed مثلا dadka aragtida dheer leh ee siyaasadda eega ee odorosa ee arka marka ay soo dhaweystaan shiicada ma caqiido ma diin ma inay jecel yihiin markay u soo dhaweystaan awood xoog leh oo cadawgaaga cadawgiisa ah oo مثلا isku dayaysa in ay laftirkooda is caabin sameeyaan iyo diyaar garow dhaqamo badan kaaga horeeya dhinaca technology-ga dhinaca hubka dhinaca wax walba kaaga horeeya marka adiga Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir tusaale ahaan shiicada kale aad tiraahdo waa walaalaheen siyaasadda marka laga eegayo caqiidada ma jeclaan gooni amina waxa kugu soo duufaya yakaadoona yastuuna oo kale waxa kugu soo duufaya intaas oo sheekh oo Soomaaliya oo aanan siyaasadna odorosin buugta iyo kitaabada akhrisana aan akhrin waxyaabaha aad ka fikirto la seexan lahayn aan la seexan lahayn ee ayagu ku eeg on kitaabadooda iyo masaajidooda iyo aragti ku kooban oo kaliya waxa agtooda kaliya wacyigaas culimada gaar ahaan Soomaalida Pakistan culimadeeda ma qabto مثلا حتى dawladaha kale ee muslimiinta culimadooda ma qabto wacyiga noocaas intaas oo muxaadaro laga galayo iyo nadwooyin iyo mu'tamaraad shiicada siyaasadda dhinaceedana aan la eegayn سأ حلين كرنا Soomaaliya hadana mushkilad noocaas ah jirta ku muuqata horta if yes how can we solve it جزاك الله خير سؤال مهم وسؤال وسؤال baahan inaan maalin iyada la faqo oo la kala shaandheeyo waxa weeyaan eeg taariikhiyan ka horba markii uu suuratu Rum dadku haday akhriyaan waxay ka akhriyaan cilmi dhan oo magaciisa la yiraahdo cilmu istiraatiijiya gartay سورة الروم وما نورنا بس كسعنا إلهي وحو كشيكي سورة الروم لنهضو وودي أقوه يليد الدنيا التنسوان مرتي إلا إمي كانت جوكتا كرتي هذا الله صعب كرتي روم مركا أنك هاللين وحويان وقودي مركي إسلام كسواب بحي كهر أدونك حكوميسي الروم أم الروما بأنه نجري صحيح ما أنتنا أدونك يكا حكومة وأمريكا إنجليز فرنسا والروم النبي وحول عليه الصلاة والسلام مركو صوبحي وحول دقال بات قلي دونتين وحل قلي دونتين فرس يروم أما فارسة فنطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها أنت جوابي سابق حضارة الفارسية وين ماطي إيران ما حضارة فارسية شيعية وين نقطة إسلام شيعية بعد نقطة رومنا محكلة رومنا وحول ذات قرون يسبب بين هذا حي كلما هلك قرن كلا صباح ظهر قرن آخر من مالنتي إسلامك إلا مانتا حديث روح وكوير النبي تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم والروم أكثر الناس يوم القيامة وحدعدون الروم وضغطوا بدر وحديث مسلم باوري صباح قرأتين معه إذا الروماو دقال كان مركز سورة الروم يسودكتي قرآن كوحوري
غلبت الروم روم waa laga adkaaday waashi laga adkaaday iyo waxaan maal inaan ka sheekayno baahna waan iska soo dhaafeynaa wuxuu yidhi wahum min bacdi ghalabihim sayaglibuuna fi bidci siniin lillahi al-amru min qablu min bacdu wa yawmaidin yafraxu almu'minuuna binasri illah wuxuu ku tilmaamay ruum markii adkaan doonto nasri ilaahay u yimid dadka waay maxay muslimiintu ugu farxayaan inay roomaanku fursi ka adkaadeen lianna roomku ahlu kitaab fursina waa cibaadatu naar iyo u dhow marka muslimiinta روم baa u dhow maxay ugu dhow yihiin kitaab bay haystaan laakiin waa munxarif kitaab ciise waa ilaahay bay leeyihin waa gaalo binisbati lana laakiin waa gaal dhacma waxaa la dhahdaa kufrigu waa darakaad soo maha darakaday ka hooseysay ka xun tahay darakaday ka soo dhowdahayna way kaaga dhowdahay walidaalika waxaa la dhahdaa bidcaduna waa darakaad bidco waxaa jirta musiibo ah iyo bidcooyin maaragtay lala socon karo boqol wax baa jirta marka adiga waxay kaga baahan tahay wax dhada qiraa'o istiraatiijiya adduunka sida loo akhriyo sida wadaadada sadxiga looma akhriyo sadxi maaha adduunku sadxi maaha adduunku maaha man lam yakun maci fahuwa diddi maaha qofka aniga ila socon waayo wiiga soo horjeeda maaha taa buush baa ku jabay oo waxa bilaadina ku jabay taan u baahannahay waxa weeyaan adduunku waa asnaaf wa anwaac wa min annaas wa min alladhiina kafaruu wa min alladhiina haaduu wa min dad ka dhow kitaabiha min alman inta amanu waxaas oo dhan baa jira marka waxay u baahan tahay qiraa'o istiraatiijiya u baahan tahay dadkan shiicada yaraadana maaha dad ku jira salad quraata maaha shiica waxaa jira sunnaha u dhow oo 100% sunnaha saaxiibayiin zaydiinta ka mid ah soomaalidu ma bay zaydiin ahaan jireen oo madhabka zaydigu ina soo gaaray walidaalika hooyooyinkii waxay samayn jireen waxa dhacdo faatima maartay abaay xuseen xasan iyo xuseen magacaan jecelahay bay ka mid tahay walidaalika zuyuud baan noqonay markii dambena shaaficiyada ay noqotay yaman nooga imatay marka zaydiyadu waxaa ka mid ahaa sancaani waxaa ka mid ahaa shawkaani iyo sancaani markaad akhrisanaysa kutubta maxaa ku qoran qaala caliyun calayhi salaam saasuu ku dhahaya sancaani kitaabka akhrisanaysa qaala caliyun calayhi salaam qaala abubakar radi allahu canhu alayhi salaam baa odhanay isaga waad garatay maaha okay maxaa u dhexeeya markaa isagu waa shiico dee markii dambe uu noqday caalim uu noqday maaragtay mujtahid bay sunniya shiicadii mid u noqdeen meelaha qaarna jaamacadaha qaarna waaba laga dhigaaba madhabka gooni ahoo jacfari ahoo مثلا ازهر ولا جامعه الازهر وجميع المذاهب والرتها دكتور علي جمعه هليسا مثلا حنفيدي حنبليدي waxay helaysaa shaafici maliki sidoo kale حتى الشيخ عبد الكريم زيدان oo sunna ah oo culimada waaweyn ee Iraaqa kitaabtiisa markuu qorayo yara wa yara ikhwaanuna shiica walaalina shiicadu waxay arkayaan saas marka qaarkood wuxuu rajixi madhabkooda wuxuu ku rajixi Jaafar maarata maalki maxaa loo leeyahay الصادق iyo saa ku tagay buu ku leeyahay وهو اقرب الى النص isaga naskan u dhow qoranaya marka qaarkood وانا مجتهد عصري الاسكو وافقيه دكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله marka waxaan u baahnaa in halka gaarno marka qaarkood cadowgaaga iyo haday hayaan qof oo maartay xaq iyo baatil marka qaarkood maaha muslim ya gaalo xaq iyo baatil laba gaalo isdiraya iyo mid xaq iyo mid baatil ee mesela Ukraine iyo kale ruushku weeraray waa baatil de Ukraine wadooka difaacaysa waa xaq de marka naxnu maca Ukraine warka joogsan leenahay marba iswaafaqayaan مثلا qofka muslimka soo wax u arko iyo Washington lima la shiinu soo wax u arko shiinu soo ruush wax u arko gartay sidoo uu arko maartay iswaafaqaysa limaada aad waafaqaysa لانه waxa jira intima insani bini aadamnimo inaga dhaxaysa markaasi qofku markuu bukiisa difaacayo الموضوع كنا قلنا طبعا لكن بريف يسير وحنا ربعنا أقولها كلية مرة واحد عضو إن ضد علماء لا ترى حال دقيقة أما صدق سكن كلية قف واحد هاي ولا جاي أبغى كان هذا الكيس يعني هرسة عهيد ما هيد مثلا صدق دقيقة هيد أما فرد دقيقة هيد مركي لا ترى لا تنسى وكتابتي سأرسلنا إنه وحاس كهذا كلية وحاس وجهه باش وليه لها ويل كيري أو كاني مقدم مساجد وكلنا أو كان لقى بعض صي كلية وليه لها ويل كذي أنت كلية مية وذات كيري كان عجلة دي أردن ومعلومات الدراسات كسوس وبيك وحولن سو كان تكستيجا هذا كان محو كوي مد يمشي وقفك أبارة وأركو أيضا ما دعوه
تعالى dadkeena maaragtay baryahan marka bisha rabiic ay soo gasho maaragtay ها culummada waaweyn oo dhan waxa ku mashquulayaan mawlidka hala dhigo ee la dhigin qadiyadii ubadda waa la iska ilaawaya dhibaatayna jirtay maanta dhan waxa lagu mashquulsan yahay hala dhigo war labada jabhadood goormay naga dhammaanayaan ee naftii ubadda ka saartay ee maaragtay waxaanu dadka ugu mashquulinayo marka qaarkood marka tahay sheekh weyn oo calaamo ah oo mustawa ah waxaa waa la iska daayaaba lan adiga waxaa kaaga filan aniga batel waxaa dhahdaa sheekh cabdiraxmaan oo maa la dhigaa mawlidka rasuulka sallam wallaahi rasuulka saacad walba mawlidka dhig fi kulli saaca وفي كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل يوم أنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم كصلي مرة كصلي كن لنه لو جعلوا نكر الرسول كذا أركي لهيد إله مر وجهه تصل يعني عيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك كلها مهم إذا أنت تعيش معه موجودا marka ma banaanaysid mawlid iyo munaasabad ما بناس وقف ضعيف وشقوي يا مارتي سيد عيد مارتي عيد محل لوgu sameeyay عيد عارف عيد صن waxa loogu sameeyay inaan farxano maalinta لكن مولدك الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك وسوى عليه مالي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مالي والبا إن تطيعوه تهتدوا مالي والبا ساعد والبا marka adiga inta soo kacdo kuma qoolishid waa bidcooyin nabiga diidayihiin rasuulka diidayihiin maxay diidayihiin waxaan ku soo noqonaynaa mawduucii qof waxa uu baxdaa waxa laga yaabaa qofka dadka meel aftahan ku yahay waxa laga yaabaa in wadaadada qaarkood ay halkaas aftahan ku yihiin sidaas daraadeedna ay soo celcelinayaan munaasabadka maadaama ay muxaadarooyin badan ka diyaariyeen firaaqo badanna ay waqti badan ay geliyeen sheekhana waxaan jeclahay wacyiga sheekha Soomaaliga markaan ka imaano marka adduunka la akhrinayo siyaasadiisa iyo suu wax u socday soo qaabaysmaya dhacdooyinka kadib marka la eegayo halkaas marka uga baxno muxuu yahay mawaaqifta مثلا dawladaha carabta iyo muslimiinta hadda ay ku aadan maadaama aan ku soo weydiiyay United States of America here sidoo kale aan ku soo weydiiyay China aan ku soo weydiiyay Ruushka bal muslimiinta iyo dawladaha carabta mawaqiftooda maxay yihiin saddex ma kala qaadayna gartay dawladda waxaanu kala qaadaynaa hadalka iyo mawaaqif fiican noocan ma le waa koow waxaan oranaa kuwo dhinac ba jirin لا إله هؤلاء ولا إله بل كن نول عالم كان وحن السعودية يسبدل كدوري ذاك السعودية بكبر عيو عالم خاصة كن نول هي قار لبا شقين يبا إسرائيل قرتي أولا شقين سيحات صدح المقلب حين تركيا هي قدر هي نوعا ما مصر واحد سلاذة هي وحبي حيان وحنوعيه turkigu isagu wuxuu qaban karayo oo hadal macaan ah iyo hoos wax ka siin ah u wada qadarna musaacadaadna way siisaa dhexdhexaadna way ku jirtaa wayna ka khafiifisaa madaxdii dadkana waxay fadhiisiisay magaaladeedii masaariduna waxay siisaa furas taxaruk bay siisaa dadka iyo masaaridu waxay ka fikiraysaa istaraatiijiyan maadaama ay dee ka hor imatay shicibkii iyo towradii ay ka hor imatay oo askar ay yihiin oo askartiina ay guuxayaan ay kacsan yihiin oo in inqilaaba looga cabsoonayo siisa lagu sameeyo wuxuu markaa sameeyaa inuu dad soo saaro dawooyin u geeyo dad wax sameeyo laakiin waxa ugu weyn uu qabto waxaa ka mid ah ee ugu fiican dhexdhexaadnimada oo waliba markii hore uu cadaadin jiray Xamaas laakiin markii uu ka khafiifiyay imika oo markuu arkay in Philadelphia laga qaadanay isagiiba oo loo yimid isagii naftiisa loo yimid waxa ka soo baxay amniga qowmiga qaraaraad oranaya aan ka khafiifino xiriirigan ku hayno Xamaas waa qorada intaas waa dhexdooda waa inta fiican yani kuwa yani lana mowqif bay leeyihiin kuwa waxaa jira midab balaayin يا كمية خليج كله قال غير قطر هي عمان إمارات كالسعودية ما بجيران بل waxay ka shaqeeyaan iminka waxay dhigaan ciyaaro music heeso barnaamijyo waxay ku jiraan caalam kale azuumado wadaadadoodii waxay ku jiraan cunto intee lag baa la cunaa buulas buuxurinaya kaannahu laa shay fi sharq al-awsat waxa adduunka waxba ka socdo والله سيرة اسمه مشغولس اسمه مشغولس يعني
qolada la shaqaynaysa boqolkiiba boqol urdun oo nidaamka ah iyo maxaan ku dhahdaa imaaraadka iminka waxay ku faanaysay urdun inay soo riday boqol diyaar bahallada ku socday Israa'iil ku socday inay ka qabatay boqol hal boqol baan ka qabanay tiri marka way ku faanaysaa marka iyadu ma qaban anuu ogahay waxa qabtay qaacidada Mareykanka ee meesha fadhida laakiin haddaan kugu daro wax yar oo muhiim ah oo u baahannahay maanta waxa weeyaan Hezbollah wuxuu sugayaa ambaba inuu ciidanka dhulka ay soo galaan ciidanka dhulku Israa'iil soo galaan ciidanka dhulku Israa'iil boqolkiiba boqol way ku xoog badan tahay cirka Hezbollah iyo Carab oo dhan baa isku daraxtaa waxa Hezbollah waxay ku xoog badan tahay ciidanka dhulka waxayna ka xoog badan tahay Israa'iil iyo Carab oo dhan maya Israa'iil baa ku xoog badan Carab oo dhan ciidanka cirka gartay marka laakiin cirku dagaalka cirku ma xasmiyo dagaalka isagu ma aha gabagabeeya u daciifiya u naxiifiya u gargaara waa musaacid waxa dagaalka dhameeya waa ciidanka dhulka laakiin New York Times iyo Washington Post iyo idaacadaha waaweyn waxay qorayeen inay galayaan ciidanka dhulka ay ku galaysa Israa'iil Hezbollah iyo Lebanon boqolkiiba boqol waa shada way bilowdeen gasho laakiin hal mitir soo dhaafay maxaa yeelo waa la sugayay marka waxa jirta waxa awraaq quwa oo ay haysato Hezbollah waa afar weeyaan waxa haysataa marka la isku yimaado zero qof iyo qof la noqdo oo dhamaanaysa ciidanka Israa'iil hoggaan lagu wada jiro sugaya wala soo baxay marka iyadoo la xanaaqsan yahay labo kartisa saaruq fiican bay haysataa oo markay meel ku ururaan sidii Xamaas oo kale dawladahooga sidii 2006 labiyo toban dawladood boqorta baabay markale baabay waqti baxsatay ay noqdeen saddex ciidan waxa jira dhalana ciidanka nuxbada ilidka ciidanka gaarka xolka waa ilaa iyo 12 kuwaasina qofna lagama taaban hubkooda lama taaban Hezbollah arinta afraad waxay leeyihiin karti dhinaca badda oo wali aan isticmaalin oo badda sugaya intaas waa awraaqda quwadda ay haysato Israa'iilna waxay leedahay awraaq quwadeed xoog badan marka dhulka la isku yimaado dacmi weyn bay heliyay cirka dhulka markay soo socdo loo garaacay meesha waxaan u garaacay waliba Mareykanka laga yaabaa ciidamada cirka hubka ay aayaan waxay abuuri karaan sadma sidii uu dhintay odayga wada badan iska dhiman karaan saddex istikhbaaraad weyn baa dhex fadhiya ciidamada Israa'iil meesha gudaha khabarad qeyr caadiya yaa fadhiya afar qaraar dawliya jiro marka meel fiican ay Israa'iil marayso dadka wala joojin jumhuriyadda qormaa joojin way faantaa ma gartay waa awood ay Israa'iil haysato dhinaca kale aan uga imaanaa oo muhiim jiddan waxa weeyaan markii odayganis su'aasha dadku isweydiinayaan si loo dilay sidee loo basaasay yaa basaasay ya su'aal soo socotay waa soo wadamaya ay fadal ku soo waa galnayba su'aasha soo ugu dhimad badan waxaan dad in badan oo kamid ah way isweydiinayaan qaabka waana markay aan ku lahaa inuu ku daahay 32 sano inuu meesha joogo laftirkeeda ka dhalan karto mesela inay qaarkood isku daahdaahaan oo in badan is ag joogaan sidaas daraadeed basaas dhexda inuu bilowday suuragal ma tahay oo sidaas daraadeed dad la joogo ay jaajuuseen oo ayaga dhexdooda ama kamid ah ama si fiican uga warqabo sidaas daraadeedna ay u fududeysay dilkiisa Israa'iil okay horta waxay ka hadlayaan ragga maaragtay taxliilaadka amniga sameeya anaguna maqaal baan ka qoray waxaan qoray Hezbollah waxaan qoray waa xoog muassaso astishika xoog waa nada duqnimo dhinaca amniga waa gaboobay laba shay ma keentay gabowga arintaas waa muhiim waxaa labada shay ee keentay waxa weeyaan wuxuu isku bedelay ururku markuu weynaaday wuxuu bixiyay waxa la dhahdo qadaraasyo markuu qadaraasyo bixiyay lacag ay imatay lacagtu markay imatana mujaahidiinta iyo dadka dagaalka ku jiray way daciifaan أينما كان المال كانت الفتنة فتنة ولذلك القرآن كما حكوا قرآن غزوة أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة halkaa bay ka soo baxday بمجرد وقفوا إنديس العاكو دعان تغيير باكو دعان ولذلك waxay dhaadeen ragga waaweyn mufakiriintu waxay dhaadaan qofka hadaa doonaysa inaad ogaato shakhsiyadiisa lacag ku tijaabi
إن صبر عنها فهو رجل وإن فنى فيها فهو كما هو هذا كل كسره وانين يعني ولذلك ما داعي waxa abuurno waxa la yiraahdo meelaha qaarkood waxa ka abuurmay dabaqooyin u dhaxeeya meelaha wax laga soo iibinayo iyo madaxda oo rag simsaarina dilaaladaasi markaasi waxay noqdeen dad muhiim ah oo u dhow madaxda xisbiga sida ay dilaaladu dowladaha ugu dhawaadaan dilaalka baa la soo raacay dilaalkii baa la tajriidiyey u dhawaaday madaxda ciidan laga dhigay ciidan laga dhigay isagii waa shaqeynaya mukhaabaraadka moosaadka la shaqeynaya isagii warka sii qaadaya soo qaadaya sii qaadaya wax ku dhajinaya meel wixii oo dhan shaqeynaya taasi waa mid weyn midda labaad waxa weeyaan Iiraan waxaa loogu dhex jiraa si aan caadi ahayn nin aan inuu bedelo laga yaabo meesha Nasrallah uu ka dhintay nin inuu bedelo laga yaabo inanka uu dhalay ya gabadha uu qabo waa ninkii Qaasimi la dilay ee Iiraaniga kartay ninkaasi meel dhaweyta waxa uu yeeray Hizbullah waxay ku sameeyeen waxa la yiraahdo tahqiiq maxkamadda tahqiiq waxa laga baqayaa inuu yahay mukhaabaraad arrintaas waa muhiim ninkaasi muxuu yahay ninka inuu bedelo laga yaabo Nasrallah inankiisi weyn oo qabana ninkii qaas la dilay iyo weynaay qaasibkii gabadhiisa ay hago Iiraan culays ku leeyahay Hizbullah iyo Lebanon culays ku leeyahay ninkaasi waxa looga shakiyay dhowr goor baa Nasrallah loo yeeray oo la xisaabiyo Nasrallah xisaabiyo mid saddexaad shirkan imika lagu dilay madaxweynaha ninkan markii la qabanayay nin Iiraaniya shirka yimid wuxuu u yimid kala tali ahaan uu fadhiistay kadibna uu baxay markuu taladii bixiyay inuu meesha wax ku dhajiyo suurtagala oo soo hogaaminaysay isagiina ma dhiban dadka qaar waxay leeyihiin isagana waa lagu tahay inuu ku dhinto meesha oo u dhintay Iiraani baa dhisalaha laakiin uu shaqeynayay soo xal garatay ma gartay marka sidee loo ogaaday meeshani waxa la iskaga amniga taxliilay waxay ka saareen shaki in ay saddex darajaba inay fadhiyaan basaasiintu darajada hoose way fadhiyaan ee ah dadka xisbiga ka agdhow sidaade baartay dadka simsaarinta dilaalada ciidamada iyo mukhaabaraadkooda waa lagu dhex jiraa iyagana madaxda sarsare ee xisbigana iyo dowladda Iiraan madaxdoodana lagama fogo walidaalika madaxweynaha wuxuu yidhi maalintii qaraarka markaan qaadan doono waxaan ku qaadanaynaa daa'irada ugu ciriirsan meesha ugu ciriirsan dhowr qof baan ku qaadanaynaa waa dhowrkii qof wax lagu dhex jiray gartay soo garatay ma marka halkaana waxaa ka jira wax la dhahdo khalal amniya ka jira gartay marka waxaa la isweydiin karaa sheekhana yaa bedeli doona Nasrallah okay su'aal muhiim su'aashaasi waxay ka hadlaan horta su'aal baa la isweydiiyey hadday iyo goorta ay dhacdo in laga takhaluso qof hogaamiye ah goormay samaysaa argagax iyo gariir istiraatiijiya goormay samaysaa la socotaa si fiican laba jeer bay samaysaa laba hadda mar saddexaad male waxay samaysaa markuu hogaamiyuhu yahay midka aan sheegnay kaarizmiga ah oo dadku dhimashadiisu ay wadnaha xanuunayso bedelkiisa adag adag muddaa la tahaa walidaalika maalintii la nabiga Uxud waa la dilay saxaabadu hubka iska dhigeen ilaa rasuulku waa alla badiil isaga loo badili karayo soo ma wuxuu yidhi saxaabadu waxay maalintan ugu farxad badneed Madiina markuu yimiday maalintuu geeriyooda maalintii Madiina ugu madoobeyd maan arag wax la mid ah dhaadeen okay taasi waa mid yani taasi way keentaa mid labaadna way keentaa marka la isku diyaarin aan loo diyaar garoobin iyada way keentaa okay xisaabta Israa'iil ka khaldan waxa weeyaan xisbiyada
maadiga ah iyo xisbiyada ideolojiga caqadiga ah ee islaamiga ah farqi weyn baa u dhexeeya xisbiyada maadiga marka la dilo markii la dilay Carafaat hoggaan wuxuu ahaa غير caadi Abbas baa mido iska dameera meelaha gaba badaya waxay isleeyihiin marka ka dishiin kana iman doona laakiin xisbiyada ideolojiga saamaha Ahmed Yasin baa la dilay Rantiis baa la dilay waxay miday haniya la dilay Sinwar ay miday qadiyadu waa soconaysaa markii dadka ideolojiina caqadiina qofku ma aha muhiim in kastuu yahay kaarizmi xisbullah wasaaso Muuse waa la bedelo khataraha la dilay waxay miday kan nimika waa la dilay yaa beddelay markaa Soomaaliya laba nin baa la hadalaya Naim Qasim ninka dhaado oo madaxweyne ku xigana ah صح iyo Safiya Hashim ninka dhaado oo ah ninka xukuma dhinaca baarlamaanka ee shuurada xukuma waa laba nin oo culus laakiin dhinaca Naim Qasim ay u badanta may dhaqan kale u badanta okay igaraad ma khalaafsanahay sax weeyaan hay Naim Qasim waa noqon karaa laakiin Naim Qasim isaga koofiyad cad busita xamad cad ruux istaxwad madow kala duwan ciidamada caadi waxay kala tahay caalim shiici tahay ciidamada madow waxay tahay caalim shiici oo ahlulbayt tahay ahlulbayt dadka sheeganayda ma ifantay marka haday ahlulbayt iyo ay simaan yani caadi ahlulbayt kala aadi taasi waa lambar weeyaan lambar 2 Safi Hashim waxa loo qaadanayaa iskuul quraatay ka soo baxeen isaga iyo Nasrallah صاحب كوني الله ها ما يحتاج إيران مال بكسو بحال وأرجع بعد إيران كسو قبل ها صح أنا تصدحات كل الدوية وحويان إن شبيه بقى ويسكو يجيب بقى حتى هذا الكا وجهه ويسكو يجي